war-saxaafadeed lagu caddeeyey sababta keentay kalsooni kala noqoshada ugaas nuur shaakooy Jibriil iyo ugaas aadan baniin oo ahaa ugaaska iyo kusimo ugaas ee beesha tobaadi oo ka mid ah beelweynta garre ayaa laga soo saaray shir muddo 3 toddobaad ah habka online-ka uga socday waxgarad odayaal aqoon-yahano qurbajoog iyo culummada beesha waxaana gebi ahaanba kalsoonidii lagala laabtay xubnahaasi oo lagu eedeeyey inaysan ka soo bixin doorkii loo igmaday asad cabdinuur cabduqaadir oo ka mid ah aqoon-yahanada qurbajoogta ah ee beesha ayaa ka hadlay sababta kalsooni kala noqoshada ugaaska iyo kusimaha ugaaska waxaana markaasi uu baaq u diray dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan odayaasha reerka ee ka soo qayb qaatay sidii loo hirgelin lahaa ama ay fikirkooda ugu midoobi lahaayeen bayaankan ay soo saareen way ku mahadsan yihiin. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada ka soo shaqeysay bayaankan iyo fikirkoodii qaabkii ay u mideen lahaayeen dhammaan qurbajooga iyo daljooga intaba waad mahadsantihiin taa. haddaan kasoo gudbo waxaan rabaa inaan dul istaago qodobka ah kalsooni kala noqoshada ugaaska iyo kusimaha ugaaska. Sida aan ka warqabno ugaaska iyo kusimihiisaba muddooyinka ugu dambeeya waxay ku dhex milmeen siyaasadda waxayna u tafaxeeteen in siyaasaddu qayb libaax ay ku qaataan. taa macnaheedu waxaan ula jeedaa siyaasadda iyo dhaqanka waa kala professionalka siyaasaddu waa mid dowlad iyo administrationka qayb ka noqonayo, midda dhaqankana waa mid bulshada loogu adeegayo dhibaatooyinka bulshada haysto in loogu qabto sidii macnaha ee markaa dhibaatada ay u taagan tahay. waxaana lagu tiriyaa nolol maalmeedka bulshada dhibaatooyinkeeda inay xal u helideedii. marka aan dul istaago halka ay sirta ka qoruntay odayaashu waxay ku dhex milmeen siyaasadda. markaan leeyahay waxaan ula jeedaa waxay ilaada ka noqdeen xubin baarlamaan kursigiisii inay ku sii hayaan kaasi oon wax saameynba siyaasadda ku yeelanin muddo 12 sano oo reerka uu ku matalayay. wuxuu lumiyey xiriirkii ula lahaa dadkii ayagu soo doortay. waxaa ugu dambeysay xiriirkiisi maalintii kursiga lagu dooranayo, waxaana ugu dambeysay maalintii kursiga sanadka dambe oo usoo taagayo unbaa la arkaa. marka waan ognahay Shabeellada Hoose dhibaatooyinka ka jiro bulsho ahaan, deegaan ahaan, nolol ahaan intaba. waa halka Soomaaliya maanta gobolka Soomaaliya markaan ka hadlayno gobolada Soomaaliya waa gobolka kaliya ee dhibaatadu maanta Soomaaliya ee ugu weyn ay haysato. codkii ninkii nasiibkii yeeshay oo baarlamaanka codkiisa maanta oo dahabiga ah ugu faa'iideyn waay bulshadii uu matalayay waxaan dhihi karaa waa taa nasiib daro u soo hooyatay mas-uuliyaddii oo qofkaas maanta uu qaaday. taa markaan ka soo tagno odayaasha waxaan isku daynay inaan la hadalno, aan wargelino oo aan talooyin siino. 1 iyo 2 iyo 3 marka badan ayaan talooyinkan u soo jeedinay. talooyinkeena way garab mareen, waxayna ku adkaysteen mowqifkoodii inay sii wadaan. taasi oo abuurtay farqalad siyaasadeed iyo mid bulshaba ah oo reerka dhexdiisa in midnimadiisa ay dhibaato ay soo gaarto. taasina mas-uuliyaddeeda iyaga ayaa qaadaya wixii mas-uuliyad xumadaasi ay ku timid. taa markaan ka soo tago waxaan rabaa sidoo kale iyadana inaan baaq u diro maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo saameynta siyaasadeed ee maanta ay ku leeyihiin ay tahay mid aad u xun oo bulshada deegaankana dhibaato badan u soo jiiday. waxaan ka digaynaa dhibaatooyinkaas farqaladaha siyaasadeed ee qaldan ee loo maamulayo in laga joojiyo. bulshadaasi ma qaadi karto dhibaatooyin badan oo waxaa jirta ee hore u soo ragaadiyey mid siyaasadeed oo aanan la qaadi karin yaan loogu darin. waan ka digaynaa. waxaan u soo jeedinaynaa arrimaha siyaasadda qaldan ee maamulkaasi in ay la soo yimaadaan siyaasad wax ku ool ah. gudoomiye ku-xigeenka degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose Gaabow Bulla Xasan isla markaana ah nabadoonka beesha Tubaadi ayaa isaguna taageeray go'aanka iyo war-saxaafadeed ka soo baxay. habasho waxaan ka nahay oo aan hadda maanta isleenahay markaan shirar badan qaadanay aan fadhiisanay markaan nahay beesha garaan nahay garaha tuufa quraanada tuufaan nahay ugaaskii iyo kusimihiisii oo maartay ayaan waxaan ka nahay nabasho. adduunku waa ogtahay oo dowlad baa ka jirta. dowladaha ka jirana waa ka waaynay inaan seemageena ka helno oo aan maaragtay waxaan rabnay aan helno. waqti badan waa baranay, waa tuugnay, waxba waa lanoo diiday ninkii kusimaha iyo ugaaskaba. markaan nahay beesha Tubaade waxaan kala noqonnay kalsoonidii ugaaska iyo kusimihiisii ayaan kalsoonidii kala noqonnay. markaan nahay reerkaas
markaana garan waxaan ogeysiinaynaa inaan kalsoonida kala noqonay ummadda kale Soomaaliyeed waxaan ogeysiinaynaa kalsoonida kala noqonay alxamdulillah warkeena waa intaas maxamed idle raadiyaha telefishinka dalsan muqdisho